كتاب الإمام السبكي في الطبقات الشافعية حكوشها قصة مشهور نغطي في زمنهم أما زمن كي أديك القرن الرابع 100 هي قبل إلى سلامة ما قاعد محل إلى سلامة وحي الخادمة خادمة أيه شغالة بيهد أو في لغتكم هنا أنت بيهد على لغتكم في هذه البلاد زين وليبا مملوك بيهد ولا ملكي markay hawsheeda gudato oo shaqadeeda qabsato ayay guriga ay joogaan ama mudulka ay ku jireen banaanka ay uga baxaysaa dabadeed waa cibaadaysanaysaa habeenkaas oo dhan marka sayidkeedii ama ninkay dadka u shaqaynaysay baa habeen u soo baxay iyada oo ku dhawaaqaysa oo leh salaamatun tuhibbu rabbaha wa rabbaha yuhibbuha intaasay leedahay سلامة قبل الليلة ربي قد بيجعل شهي ربي قد نوجع ليهي محايد مقلين المركة قيده يبوره ينكحانتي نجحتي أكتي لي أي هذا الكيد دي بوسوع لنا إلهي باكر دواجنا بقدرة الله تعالى وقيده يبوره إدراك بيليهن درين بيليهن تسبيح بيليهن رواق بيليهن لكن قفك إلهي مقشيا مقلاي قرآن كبو نوشهي داود عليه السلام إن مركو ربي أمانة يه بوره أي كذب أمان جرين أكو إلهي إليه جل جلاله ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد بوره بأمر لسيوحى الليل ذكرك وحسد إلهي وحسد كذب الله يذكره بوره ما كذب الواقع كبدا مسلمة داي ربي جعلاتي وحا إلهي كدواجي كيده يبوره يدخانتي أغار كذاها أي كل وذو حيليهن هذا الكيدي بكسوع العلنية سلامة تحب ربها وربها يحبها markan nimankii ninkii lahaa gabadha ay u shaqeyn waaba yaabeenba qof darajadaas ma anaga hadda aan ku shaqeysanayn bas wax subaxi waxa leeyahay adiga ba sayidan oo meesha anaga aan sayid adna u khidmeynays adiga lagu khidmeeyo waay arsidaas ma ahe anigu hawsheena iska wadanayaa rabbigaygana calaaqa la leeyahay iska keedaayo ma jirtaa leeyahay see wax kugu dirsanayna degad halawat al-iman allah nasiya halawat al-iman حلاوة الإيمان محنكو هلينا صدح شيء والنبي ونوشي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يكون الله يا رسول كيسة إن عد كستعديك كجعش إلهي قف كستعديك كجعلاته الله إلا جعلاته أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله رب العالمين حبي سينو حبي كستك هذا هرمرو جعلك إلهي قلبي إنه كبح سمو نعم ومن أولى بحب الله إلهي أو أوليسا إنا جعلانه إلهينا أبو ري أنه جرين يعني إنسانكم مراحل بصومري يعني مرحلة كستو هذا أتقصه كانتهي ديب هذا ذو نقطه وحاد ogaanaysaa inay adduunyadan soo martay waqti aadan jirin aan lagu aqoon magac aadan lahayn waxa la waxa taan jirin ilaahay baa ku abuuray birahmatihi wa ihsanihi allah rabbul alamin wa ka calooshu hooyadeen nagu abuuray ee nagu dhaqaaleeyay ee nagu barbaariyay allah rabbul alamin xinjir yaro dhiiga adiga oo ah وكا المجالين كهيدا كوكو إلالي أن عندنا كوباهن إلهي وكاكو إلالي وكاكو أبوري وكا سور كودا مشتري نورش هذا كودا مشتري هل كا مركات كو جرتي وكاكو قودي عنتكو سيي أن عندنا كو وكالا أن عندنا كوكو هلينين المهم مركي على شو هيودو روح ذا أي قشو أي نولادان عنتي وباهيه المهاس عنتو وباهن علم كلام هذه على هذايا أنا جالس كهذايا قف كستو ماشان فرديان لهذايا وحا إلهي كاقودي حدون هذا أي إلهي حرك كحري كحرا
caloosha hooyada mindhicirkeeda ku xidhan cuntada iyadu ay cunto qayb ka mid ah ayaa ilaahay u bedelay inuu kaa siiyo adiga quudkaaga dhigo oo kugu quudiyo kaas yaa kaaga awlaysan inaad jeclaato jacaylka ka badan yaa iska leh ka meeshaa kugu dhaqaaleeyey ee kugu ilaaliyey ee cirdo waxaad u ahayd halis waxaad u ahayd xarakaadka hooyada ay dhaqdhaqaaqayso inaad kaba soo dhacdo yaa ku ilaaliyey oo ku barbaariyey oo dabadeedna kuu taysiiriyey oo waddadii kuu sahlay oo markaad soo baxdayna dadku xariggii cuntada ku siinaya waa gooyeen aan meel kale kuu baahine ilaahay subxaanahu watacaala hooyada caana kaaga keenay bal fiiri rabbigeen waa rabbulcaalamiin waa akramu lakramiin makhluuq kaste baahidiisuu og yahay ilaahay wuxuu ogaaday kuwan kale xayawaanka annaga nala mid maxaan ka wadaa ariga iyo geela iyo looda isku mid baan nahay makhluuqaad baan nahay ilahay baana wada abuuray ilaahay wuxuu ogaaday qoladaas ariga iyo looda iyo geela iyo 4 lugood bay ku socdaan hooyadii ilmihii ma xambaari karto gacan ay ku xambaarto oy laabteeda ay ku qabato oo ay naaskeeda ku nuujiso ma hayso dabadeed ilaahay fiiri rabbulcaalamiin rabbi kulli shay inuu yahay maadaama uu saas uu sameeyey isagu saa ugu talagalay ilmihii hadda dhashay ee ariga ahaa waxartii hadda dhalatay isla markaa way dhaqaaqaysaa afarteeda adin bay ku istaagaysaa way dhaqaaqaysaa iyadaa hooyadeed u tegaysa naaskeeda jaqaysa ama halkaa ka baxaysa oo iska cunaysa cawskii iska cunaysa hadday dhalatay isla markii way dhaqaaqaysa muxuu saa u yeelay rabbulcaalamiin wuxuu ogyahay in hooyo sida bani aadamka oo kale gacmaha ku qaada oo ilmihii xanaanaysay inaysan jirin markaa uma baahin ama adiga soo maaha ilaahay wuxuu kugu talagalay calaaqo wanaagsan inay idin dhex marto adiga iyo hooyada iyo waalidka aabbaha maxaba iyo kalgacayl baa ilaahay qalbigeeda geliyey laba gacmood ay kugu soo qabsataa ilaahay u sameeyey tarbiyada barbaarinta fiiri hadda qofka weyn nin weyn ama laag weyn haddii allah nagama dhige ay caaq ku noqoto aabbihiisa ama hooyadii caaq ku noqoto waa la nacayaa waa qof aada loo nacayo lama jecla maxaa hooyadaadii ku soo barbaarisay miya hadda aad ku caasinaysaa oo caaq ku noqonaysa waa sax waa arrin bani aadamka laakiin yaa ka xaq weyn ilaahay ku soo barbaariyey ogow hooyada iyo aabbaha tarbiyadoodu waa maxduud way kooban tahay laakiin tarbiyada iyo barbaarinta ugu weyn ilaahay baa ku barbaariyey calooshooda markaad ku jirta cunto ku siiyey calooshooda markaad ka soo baxdayna cuntadii reerka ay karsadeen kuguma hadlaynine caano kaaga keenay hooyada hadda gaaladan xunxunka ah ee ilaahay ma jira afkooda ka dhahaya waxay istaahilaan dhulka in lala gooyo waxay istaahilaan in caro ilaahay samada dhagxaan lagaga soo tuuro laakiin ilaahay waa kariim allihii abuuray koonkan iyagana abuuray ay afkooda la baxayaan oo leeyihiin maba jiro ilaah ma jiro kuwa hadda odhanaya walciyaadu billaahi walciyaadu billah allah naga koriye kaas waxaad ku tiraa mid baan ku idhi aniga oo jarmal oo beri ila dooday wuxuu yidhi aniga hooyaday baa i samaysay oo hooyadaa intay gacanteeda gelisay caloosheeda ayay sankan iyo indhahan iyo waxaan isku samaysay maya waa iska samaysay ani su-aalan ku weydiinaa baan idhi caloosha hooyada markaad ka soo baxday ma sandwich baa lagu siiyey hamburgerkay jecel yihiin iyaga hamburger sandwich baa lagu siiyey mayu yidhi maxaa lagu siiyaan idhi caanaha hooyadii baan cabuu yidhi ya caanahaas ma ka warhaysaa markay soo baxeen ugu aamusay anaa kuu sheegayaan idhi hooyadaa caano ma lahayn intayna ku dhalin caano ma lahayn caloosheeda markaad ka soo baxday ayaa ilaahay caanaheed kaaga ka soodka yaa isku beegaanin yaa isku wakti ka dhigay caanaha soo bixidooda iyo adiga soo bixidaada yaa isku wakti ka dhigay haddaadan rabbi lahayn ku barbaarinaya ku og inaadan ilka lahayn aadan bariis iyo baaste iyo hamburger cuni karin wuxuu ogaaday wax kale oo kuu suubada inaysan jirin oo aan ahayn caanaha hooyada kan kuu sameeye waa kuma waa allaahu rabbulcaalamiin
haddana xubnihii aad caanaha kula soo bixi lahayd iyo idraagii ku siiyey ku baray adduunyadoo dhan hadday isu tagaan kuuma sheegi karaan sida caanaha loo nuugo ama loo jaqo kuma bari karaan yaa ku bari ila allahu rabb اlcaalamiin wallahu أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون